أنا إنجنير علي هيبة محمد أنا إنجنير كي ودن كودن بيو سمي سمال اللي أنت لك صحيح وما أنت سوكي أنا قد داوعة لا دونا أنا يرين حسن عيسى وعيال كي أنا تسعة سنين هي سقي ولا الكي إن البيرتي دي حتى أنا يقول قفصان عنيها تقول كل واحد كم مال موجود إن عندي أنا واحد يدفعه وحسن عيسى يفسد بس كذب قيفتي حق الضحى عيالشة الوين بكوي على ماشي يا يو ددي تجيسي وده بيرها بسريسي أنت بقول كيبي مش كذب محكمة ضام تقني أنا عشان تدور شيء إنه كده ويني كل كأوه أنا محكمة ضام إيمان مايو حبلها يدك كي أنا مثول كميه وأنا حير وضع ده ماشي الأحمر شيء بيرها وضع ده نجي ركض فرنو الحيسي وضع مش كده سوينا نلوش الدري وديزي أيوة الدولة ده حلقة سريستك هذا أنا عشان تيجي السعون هين وديزي محكمة دي مدد وصنعه المركز الدولة ده نحل حاسس ده الدولة دي وصل اللي صدر ستري يدك وهشية هشية سنوقرا ومدة سومالي عنده حنوش يجيه إن وحي ليوهاي ninkan madaxweyne ku-xigeenka ahaa iyo dadkiisu shantaas sane imika tegey yaa inay ila arkaan ummadda waxaan usoo qabtay cidu qabatay way yareed waddanka o dhan baa dembiyaa u sameeyey oo weliba kun hargeysa dooni lagu dilo ninkii ummadda waxaa u qabtay in haddana maanta lagu cayaaraa meesha ma taalo wax kale ku dacwooyi maayo xoolahiisii ayaa imika kurba badh la goosanaya beertiisii dowladii ummadda waxaan ka codsanayaa Somaliland in arrintan wax laga qabto oo la soo kala gaadho intaan waxaan furaa ka bixin hadduu xasan ciise joogsan waayana aniga iyo dadkayga aan ka dhashay ilaa aan basheer baan ka dhashay waan iska celin doonaa waxaan halkan dadka u sheegayaa in maalin kaste beertii la leeyahay xoreeya dumar iyo ciyaal lagu soo dirayo askartii markii aan keeno ama saldhigga aan tago mindiye inay ila soo baxeen askartii markhaati ka ahayd waxba laga qaban waayay maxkamaddii waxba ka qaban weyday isagii diiday inuu maxkamaddii yimaado waxa aanu meeshan iibsanay 26kii markii aan iibsanay waxa weeyaan waxay lahaayeen ood baa meesha ku taalay amar mushtaag baa meesha laga iibiyay oodii markii ku taalay waxay lahaayeen sandaqadii darkad halka ka soo jeeda xasan ciise uu ku noolaa isagoo ardaya jaarna wuu la ahaa aabahay markuu guriga dhisanayay wuu joogay meesha geedka wax ka hooseeyay inaanay lahayn wuu ogaa waxaan u iman laayay maalin kasta u iman laayay geedka wax ka hooseeya ma garanayaba because waday ahayd annaku waxaanu geedka wax ka hooseeya waanu iibsanay oo ceelasha waanu iibsanay ceel walba iib buu nagu soo galay dhulkan beertu iib buu nagu soo galay bilaash nagu soo galin maxkamadda aabahay reasonku u galayna waxay ahayd Suldaan Cumar Allah u naxariistay ayaa meeshan la keenay garta galay ragu dhiibay gartii halkaas la isku keenay isaga aabahay ragii uu daadafeeyay gartigu daadafeeyay dawladii buu tagay dawladiina waxay dawladda xaqii ugu sareysay maxkamadda tagaana lagu yiri maxkamaddii baan tagnay markii ay iibiyeen beer meel kamid ah beertayada ayaan maxkamadda aaba geeyay markii samanadii uu geeyay xaakin kasta waa la duraayay ilaa xaakinkii uu rabay lagu qoray xaakinkii uu rabayna wuu xukumay xaakinkii labaad markii aan racfaanka ka qaadanayna xaakin qaba inuu adeer u yahay ayaa lagu qoray oo ina cadaawa ah waanu weydiino waxaan ku iri meel lama iska soo gashaano may buu nagu yiri xaakinkaasi ayaa qaaday kiiskii iyagii haddana uu xukumay laakiin meesha uu xukumay ma fahansana xayiraadu waxay ku socotaa labada beerood inta u dhaxaysa ayuu aabahay xayiray markuu arkay sheekadan beerta reer Kidifaar iyo beerta Cali Haybe meesha u dhaxaysa ayuu xayiray 10 mitir geedka ilaa guryahaas oo ceelka iyaga dushiisa ilaa halkaas xukunku taasoo ku dhacay hadda xukunku maanta maxkamaddii sare racfaan baanu ka qaadanay intii ay dacwadu socotayna waxa dhacay in yaroon habareero ah baa loo yeeray lacag baa la siiyay lacagtii waxa la yiri waxa tiraahdaa waxaan guuray kaabadihii inan yaro iska ciyaalo dayar buu ahaaye uu yiri guriga xasan ciise ayaa lagaga qoray statementka meeshu may xayirnayn markii la qoray waxay inankii bay xidheen dacwadii baa socotay meeshii oo dhan baa la waalay dacwadii waxay ku dambeysay
in inankii waaran loo gooyo lasoo xidho isagoo xidhan kuwaa saadkii ay lacagta ugu dirayeen waa nambarkoodii waa nambarkii yurub xariir ay ka diraysay lacagta taasoo caddaynaysa marka saadka lagu eego oo xaaska xasan ciise ah iyo maryan ciise ayaa u diraayey inankii yaraa wuu xidhnaa waqti badan bay qaadatay maxkamaddii waxa timi hooyadii way dacwootay waxay tiri inankayga waxba muu samaynin waa la dhagaysan waayey caydaruus waa la xukumay markii dambe wataa warqadii xukunka waxa lagu xukumay 1500 iyagii saadka bixinay wax kasta samaynayna waa la sii daayay anigana waxa la igu yiri waxba laguma hayo waa kan inanka walaalkii Cabdalle kaalay Cabdalle bixiyay 1300 oo walaalkii ka wakiila inankii yaraa wuu xidhnaa waa lacagta laga qaaday inta yimaadeen baa xitaa dukaankaygii la baabi'iyay geedihii baa la jarjaray waxaan u tagnay geedaha markii la jarjarayay wasaaradda beeraha markii la gubayay waxaan u tagnay wasaaradda beeraha waxaanu ka dacweynay xeer ilaalinta cid aliyaale cid wax ka qabatay ma jirto maantana ceelashii ugu dambeysay ayay aaseen markay aaseenan tagay saldhiga 9 askari oo kala nooca la soo raaciyay 9 askari waa markhaati bay ka ahaayeen inay mindiyeen oo la soo baxeen oo yiraahdeen anaka ceelka aasnay de haddaba ceelku mana xayiraadana kuma jira dhulka iyaga nabadgelyaanu ku rabnaa wax kastana waanu samaynay arab cid walbana waa loo diray wadadiina wuu haystaa dhulka iyagina waa la burburinaya ciyaalkii baa lagu leeyahay xoreeya oo maalin kasta geed gubaya geed maxay tole ay siid ku shubaya ceelashii aasaya oo kolba soo durkaya maalin meel ay ku istaagayaan ma jirto waxay rabaan beertan inay qaataan gabigeedaba ammaan baanu rabnaa ammaan baanu la'nahay xasan ciise iyo reerkoodii hooyadii iyo halkaas dhinacaas deganayeen ay sandaqada ku lahaayeen markii dabadeen maqsir ay ka dhisteen meeshii markii hore meelda daarado kala ay ahayd halkana wada ahayd u dhaxaysan labada muxuu ilbaka difaar iyo muxuu reer beertooda beertuna sharci bay leedahay oo wasaaradda beeraha ayaa berigaaba sharciga u samaysay dhinac walba inta bitiray tahay iyo faylkii oo dhan baa yaaladii muxuu ahayn oo la sharciyay marka xasan ciise inuu waxaan dhex galo madaxweyne ku-xigeenka waddanka ku noqdo mansab buu yeeshay laakiin arrimaha caynkan oo kale ah inuu soo dhex galo ama walaaladii soo dhex geliyay hablahooda iyo waxaasi maaha haddii la wada hadlayana rag baa wada hadla ee dumar iyo aflagaade iyo caytan lagama baahna meesha oo imika haddaad dib u fiirsato geedkaa qalala iyo aasil baa lagu shubay waa dhisi waaweynada khusrad ahayd imika maxkamaddu ku jiraa maxkamaddii lafteeda dee telefoon buu ku wareeriyey marka waxa weeyaan ugu dambayntii dumarkani waxaan laga joojiyey meesha iyo shaafajirka xasan ha yimaado meesha annaga la hadlayna annaga wada hadlayna sharciga la eegayaa wasaaradda beeraha loo yeerayaa dawladda hoose loo yeerayaa waxaana wax sharciyeysan qofna waxaan lahayn qaadan maayo laakiin dee in dumarka la soo diro maaha iyo maatida waxa isku hayr qaban weydii madaxweyne dhammaan ummadda u sharaxayni ee mujaahidka ahaa ayin baa 10 mitir ummadii ku kala saarla oo la walaashay gurmoon waxa isku hayr qaban weydii ninkaas waxaan la damacsanaynay halka uu muxuu ahaa halka rafanayay imka garsool kuma kalsoona meel kuma kalsoona waxaan leenahay ninka meesha 100 sanadood la deganaa 10 mitir oo ku meereysanayo ninka in muxuu ahaa ummaddu ay aragto waxaanu leenahay haddii aad doonaysa xasanow inaynu kala baxno arrin isugu keenkeen ama cid soo wakiilo hadday taasi dhici weydo tolku isxagxagan doonaa faraha la isla geli waxa weeye adigaana ka dambeeyo waxaasoo dhan waxa weeye odayaal ahaan xagga iyagii waan joognaa idinka xaggiinnii xasan ahaan in ama cid adiga ka socota la helo ama adiguba aad cagahaaga ku timaado oo aynu kala baxno ingiriisku magaalada kolku deganaa tegey oo imid oo markhaati iyo madalba anigu aan leeyahay oo wax walba garanayo ayaan dabeedna meeshaas soo degay calayhaybe aqalkiisaa kolkii la dhisayey ciiddii la dhisayey baan ugu horreeyey anna waan ku xigay kabacdi waxaan ugu imid xasan ciise halkaa isagoo ka dhisan tahay dergad yari ka dhisan tahay wax ka joogaana aanu jirin kabacdi aqalkiisaasaa lagu dhisay taar baa noo dhexeeyey taarkii noo dhexeeyey aqalkii iyaguna intoodii way dhisteen annaguna halkayaga waanu ku dhisanay dabeedna markhaati bay lahayd kabacdi waqtigii ka dambeeyey wuxuunaanu aragno iyagoo cagaf iyo adduunye uun saa lagu dhex jira uunoo saa unu wada taar jirin oo tirin waxba jirin baylah badan halkaan naga taallo marka waan la hadlay xasan ciise waxaan hooya halkaan aqalka inoo dhexeeya halkaan beertan geedka inoo dhexeeya dad walaala oo wada dhashano weynahay wixii meesha ku jira fartaan wax isku tusno gacantan sidaa u qabtay markhaati bay leedahay
dad baa markhaati naga wuu igu diiday 3 goor baa weerar cagaf laygu qaaday anigoo cidina joogin markhaatina way leedahay dad baa hareeraha iga wada xiga anoo saadahaya ka joogtaaya ayaa dabadna ilaahay ummad noo keenay waa la naga diray maantana waxaan leeyahay annagu khasaare dooni mayno tolstilena dooni mayno dhibaatana dooni mayno dawladdu hadday sharaf iyo wanaag waddanka ka qabanayso halana soo gaadho hooyaanahay dhibaato ma doonayo itaalkaastaan ka lehay dad iyo dunyaba meesha waanu haysanaa 2 aqaloo isku xigaana colaaday muujiyaan dhibaatada ugu weeyaan dawladda hana soo gaadho